jilayaasha ugu waaweyn Bollywoodka oo dacwad gudbiyay qaar ka mid ah filim soo saarayaasha ugu waaweyn ee shirkadda Bollywoodka ee dalka Hindiya ayaa gudbiyay dacwad ka dhan ah waxa ay ugu yeereen warbaahinta kheyr mas'uulka ah ee dalka Hindiya. Talaabadan ayaa daba socota arrimaha la xiriira geeridii jilaagii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Sushant Singh Rajput oo dhintay bishii June. Waxaa la aaminsan yahay in atoorahaas oo ka tirsanaa Bollywoodka uu isaga isdilay, laakiin kiiskaasi waxaa dhowr bilood hurinayay wararka la isla dhexmarayay oo ay faafiyeen telefishinada. Tobanaan shirkadood oo ay ka mid yihiin kuwa ay leeyihiin xidigaha kale ah Shahrukh Khan, Aamir Khan iyo Salman Khan ayaa qaaday tallaabo. Nolosha dadka ka tirsan Bollywoodka waxaa saameyn ku yeeshay sida qaldan ee ay ololaha u wadaan dadka dacwadda laga yahay ayaa lagu yiri kiiska la gudbiyay. Geerida jilaagaas ayaa bilihii la soo dhaafay si weyn u haysatay hadal haynta guud ahaan warbaahinta dalka Hindiya. Isku darka 34 filim ayuu soo saare ka ahaa iyo 5 shirkadood ayaa sidoo kale ku biiray kiiska ka dhanka ah 2 telefishin oo laga leeyahay India iyo 4 wariye kuwaas oo aan weli ka jawaabin eedeymaha loo haysto. Waxaa faragelin lagu sameeyay xuquuqda gaarka ah ee xubno ka tirsan Bollywoodka sharaftooda. Waxaa la gaarsiiyay dhaawacyo aan ka soo kabasho lahayn iyadoo guud ahaan Bollywoodka laga dhigay shirkad dambiile ah oo daroogada ka ganacsata. Shacabkana waxaa laga dhaadhicsiyay in Bollywoodku ay tahay meel lagula dhunto dambiyada iyo maandooriyaasha ayaa lagu yiri dacwadda ka dhanka ah telefishinada iyo suxufiyiinta. Rajput oo 34 sano jir ahaa ayaa meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Mumbai 14 bishii June. Booliska ayaa markaasi sheegay inuu isdilay, laakiin qoyskiisa ayaa markii dambe laamaha amniga u gudbiyay cabasho ka dhan ah gabadhii ay saaxiibka ahaayeen oo ah atariishada lagu magacaabo Rai Chakraborty, iyagoo ku eedeeyay inay sabab u ahayd dilkii wiilkooda iyo dambiyo kale. hase yeeshee iyadu dhammaan way beenisay eedeymahaasi. Tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyay tiro ka mid ah xidigaha Bollywoodka oo ay ka mid tahay atariishada caanka ah Deepika Padukone ayaa wajahday su'aalo qayb ka ah baaritaanka dhimashadii Rajput, inkastoo cidna aan toos lagu eedeyn waxyaabo qaldan. Kiiskaasi waxaa baaritaan ku wada 3 hay-adood oo ka tirsan dowladda. Bilihii la soo dhaafay waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada lagu hadalhayay warar aan rasmi ahayn oo lagu xamanayay dad la sheegay inay atoorahaasi ku kalifeen inuu isdilay.